Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaan asxaabta ku xiran Casaawa Academy. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa course ku saabsan Windows 10ka annagoo isla baranayna interface-ka ama wejiga hore ee Windows 10ka iyo sidoo kale qaybaha uu ka kooban yahay interface-ka oo dhan. Soo kuna isla baran doonaa iconada ku jira computerkeena sida loo waaweyneeyo, sida loo yaryareeyo, sidoo kale sida aan u qarin lahayn iconada. Iyo annagoo isku dayi doona inaan habeeyno iconskeena haddii ay naga kala yaacaan. iyo sidoo kale inaan bedelno sawirka background-ka ama desktop-ka noo saaran iyo qaybo badan oo muhiim ah oo ku arki doona muuqaalka. Haddaba haddii aan ku hormarno qaybta ugu horeysa ee interface-ka ah, meeshan hadda calaamadda aan saari ee buluuga wax loo yaqaan desktop waana meesha ka soo muuqanayaan iconada ku jira computerkeena. Sidoo kale feelasha adiga muhiim ku ah waxa dhigan kartaa desktop-ka si aad u aragtid marka ugu horeysa soo gashid computerkaaga. qaybtan kale bidix waxay nooga soo muuqanaya waa icons. deletan hoose cad ee dheer ee hoos ka soo muuqanaysan wax loo yaqaan taskbar. taskbar waxaynu ka arki karnaa saacadaha iyo taariikhda oo haddii aad u baahan tahay in computerkaaga adeegtid saacadda inta marayso iyo sanadka inta uu marayo baad ka eegi kartaa. sidoo kale waxaan ka heli karnaa meesha computerka codkiisa laga dheereeyo lagana gaabiyo. waxaan kaloo ka heli karnaa meesha computerkeena aan kaga xiriirsan lahayn internetka ama wifi-ga mobilkaaga aad kaga xiriirin lahayd. sidoo kale waxaan ka heli karnaa meesha laga eego dabka bateriga ee laptopkaaga inta uu marayo haddii aad laptop isticmaalisid, balse haddii aad isticmaalisid desktop qaybta bateriga kuma soo muuqan doonto. sidoo kale waxaan ka heli karnaa taskbarka badhanka searching oo haddii aad u baahan tahay computerkaaga applicationada ku jira inaad ka raadisid oo aad isticmaali kartid. sidoo kale waxaan ka helinaa badhanka start menu oo aan isticmaali karno inaynu ka soo furanno applicationada ku jira gudaha computerkeena sida haddii aad u baahan tahay calculator-kii iyo kaameradii inaad ka soo furatid. sidoo kale waxaan baran doonaa sida loo kaxeeyo iconada. haddaba haddii aan isku dayo hadda iconska inaan kaxeeyo oo ma dhaqaaqayo ama kaxayn karo, si aan u kaxeeyo waxaan tagayaa meel bannaan oo ka mid ah desktop-ka. waxaan ku dhufan doonaa mouse-ka dhankiisa midig ee loo yaqaan right click. intaa kadib waxaan ku dhufan doonaa view. kadib halka ku qoran tahay auto arrange icons waxaa ka qaadi doonaa tigta. intaa kadib waxaa awood u yeelan kartaa iconskaaga inaad kaxaysatid qaabka haddaan u kaxeynayo kale. balse haddii aad u baahan tahay dhammaan iconska inaad kaxaysid, waxaa samaynaysaa inaad dhammaan iconska hal mar wada dooratid. kadibna iconka aad u baahan tahay waxaa ku dhufanaysaa left click oo badhanka bidix ee mouse-ka ah. deedna left click ugu horey markaa ku dhufan wax isku dayi doono inaynu kaxeyno annagoo soo jiidayno dhammaan iconska. intaa kadibna waxaan dhigi doonaa barta aan u baahannahay. sidoo kale si aan iconska bartoodii hore aan ugu celinno, waxaan ku dhufan doonaa sidii haddaayoo kale meel bannaan oo ka mid ah shaashadda annagoo ku dhufan doona right click kadibna ka dooran doona view. intaa kadib halkii ku qornayd auto arrange icons ee aan ka qaadnay tigta waxaa saari doonaa calaamadda tigta. intaa kadibna iconski waxay si automatic ugu laaban doonaan booskoodii. waxaan kaloo baran doonaa sida loo waaweyneeyo iyo sida loo yaryareeyo iyo sida dhexdhexaad looga dhiga iconska. haddaba haddii aad u baahan tahay iconska inaad waaweynaysid, waxaa ku dhufanaysaa meel bannaan oo ka mid ah desktop-ka adigoo isticmaalaya mouse-kaaga dhankiisa midig ee loo yaqaan right click. intaa kadib waxaan ku dhufan doonaa view. kadib waxaan ka dooran doonaa halkay ku qoran tahay large icons. intaa kadib waxaa ku waaweynaanaya dhammaan iconskaagii. haddii aad u baahan tahay sidoo kale inaad dhexdhexaad ka dhigatid, waxaad dhahaysaa right click, waxaad ku dhufan doontaa view, waxaana ka dooran doontaa medium icons oo iconada waxay noqonayaan kuwa dhexdhexaad ah. sidoo kale si aan yaryar uga dhigo, waxaan ku dhufanayaa meel bannaan oo ka mid ah desktop-ka adigoo dooranaya right click, waxaan kasii dooran doonaa view. intaa kadib waxaan ku dhufan doonaa small icons, kadibna iconskeena waxay noqon doonaa kuwa yaryar. sidoo kale waxaan isla baran doonaa refresh. refresh waxaa loo isticmaalaa marka computerka uu kaa yara cuslaado ood u baahan tahay culayskiina ka saalig. haddaba si aan u isticmaalno waxaan dhihi doonaa right click. intaa kadib waxaan ku dhufan doonaa refresh. sidoo kale refresh waxaa ka samayn karnaa keyboard computerkeena annagoo isticmaalayna badhanka loo yaqaano F5 oo keyboardka ku yaal. intaa kadibna computerku is refresh gareyn doonaa. sidoo kale waxaan isla baran doonaa sida loo qariyo iconska. haddaba haddii aad u baahan tahay iconska inaad qarisid, waxaad tegi doontaa meel bannaan oo ka mid ah desktop-ka adigoo isticmaalaya mouse-kaaga dhankiisa midig ee loo yaqaano right click. intaa kadib waxaan ku dhufan doonaa view. kadibna halkay ku qoran tahay show desktop icons waxaan ka qaadi doonaa tigta. intaa kadib waxaa qarsoonaya dhammaan iconskii saarnaa shaashadda. haddaba haddii aad u baahan tahay iconskii aad qarisay inaad dib u soo celisid, waxaad tegaysaa sidii hore si lamid ah meel bannaan oo ka mid ah desktop-ka adigoo isticmaalaya right click. intaa kadib waxaa ku dhufan doontaa view. kadibna halkii aan tigta ka qaadnay ahayd
show desktop icons waxa saari doonaa tigta. sidoo kale waxaan la baran doonaa sida loo sameeyo folderka. haddaba si aan u sameeyno folderka waxa tagi doonaa meel bannaan oo kamid ah desktopka. waxa ku dhufan doonaa right click, waxa ka dooran doonaa new, kadib waxa ka sii dooran doonaa halkii uu qoran tahay folder. inta kadib folderka waxa ku qoran doonaa magaca aan u baahanahay. kadib marka inta sameeyo si aan u dhexgeliyo folderkii aan sameeyay sawirada iyo video ku jira computerkayga, waxaad soo qaadanaysaa sawirka ama video aad u baahantahay inaad gelisid folderka adigoo ku dhufanaya sawirka ama videoga left click oo haynaya oo jiidaya left clicka. kadib waxaad dul dhigi doontaa folderka dushiisa sawirkii ama videogii. marka ay kuu soo baxdo move waxa ka foqaysaa sawirka, kadibna wuxuu ku dhex geli doonaa folderkaaga. haddaba haddii aan isla eegno sawirkii wuxuu noogu dhex jiraa folderkii. intaa kadib haddii aad u baahan tahay sawirkii inaad ka saartid folderka oo aad ku celisid desktopkiisii, waxaad gudaha u geli doontaa folderka folderkii aad samaysatay. kadibna waxaad ku dhufan doontaa sawirka left click, waxaan u jiidi doonaa dhanka bidix anagoo geyn doona halkii ku qoran tahay desktop. kadib markay noo soo baxdo move to desktop waxa ka foqi doontaa sawirka, dina qaabkaas waxa uga saarinaa folderka. sidoo kale si aan magac uga bedelno folderka, waxaan ku dhufan doonaa folderka dushiisa right click, waxaan ka dooran doonaa rename, kadibna waxa ku qoran doontaa magaca aad u baahan tahay. sidoo kale folderka waxa ka bedeli kartaa magaca adigoo isticmaalaya keyboardkaaga. waxaad dul tagtaa folderka, inta kadib waxa ku dhufataa badhanka keyboardka ku yaala ee loo yaqaano F2, kadibna ku qoro magaca aad u baahan tahay. waxaan kaloo isla baran doonaa sida loo delete gareeyo folderka. si aan u delete gareeyno waxa ku dhufan doonaa folderka dushiisa right click, inta kadib waxa ka dooran doonaa delete. haddaba folderkii sidaas baa lagu delete gareeyay. laakiin haddii aad u baahan tahay folderkii inaad soo celisid, waxaad dul tagi doontaa meeshay ku qoran tahay recycle bin adigoo ku dhufanaya double click oo gudaha u gelaya. inta kadib waxa ka dhex baari doontaa folderkii aad u baahanid inaad soo celisid, kadib waxa ku dhufan doontaa folderka dushiisa right click, waxaana ka dooran doontaa restore. kadibna sidaas waxa kuugu soo laabanaya folderkii aad delete gareysay. waxa kaloo isla baran doonaa sida loo bedelo sawirka saaran desktopka ama backgroundka saaran. haddaba si aan u bedelno sawirkaas, waxaan tegi doonaa meel bannaan oo kamid ah desktopka anagoo ku dhufan doona right click oo ah badhanka midig ee mouse-kaaga. inta kadib waxa ka dooran doontaa halkii ku qoran tahay personalize, kadib waxa ka sii dooran doonaa halkii ku qoran tahay background, kadibna sawirada meesha yaalla mid kamid ah inaan dooran doonaa. haddaba haddii aan ka baxno aan tagno desktopka, sawirkii hore ee shaashada saarna sidaas isku bedelay. sidoo kale waxaan samayn karnaa inaynu soo gashanno sawir ku jira gudaha computerkeena. haddaba si aan u bedelno sawirka waan u soo gashanno sawir ku jira gudaha computerka, waxa ku dhufan doonaa right click, waxa ka dooran doonaa personalize, kadib waxaan u geli doonaa gudaha halkii ku qoran tahay background baa ku dhufan doonaa. inta kadib waxaynu ka sii dooran doonaa browse, kadib waxaan soo qaadan doonaa sawir ku jira computerkeena. inta kadib waxaan ka sii dooran doonaa choice picture. haddaba haddii aan ka baxno sawir ku jira computerkeena qaabkaas buu isku bedelayaa. sidoo kale waxaan bedeli karnaa sawirka saaran shaashada anagoo isticmaalayna midabo kala duwan. haddaba si aan u bedelno waxaan dhahaynaa right click, waxaan ku dhufan doonaa personalize, inta kadib waxaan dooran doonaa background, halkii ku qoran tahay picture baa ku dhufan doonaa. waxaan ka sii dooran doonaa solid color, kadibna midabada meesha yaal mid kamid ah ku dhufo. qaabkaas ayuu isku bedelayaa sawirkaagii. waxaan kaloo isla baran doonaa sida loo bedelo sawirka saaran lock screen-ka ama marka computerka loo gareeyo sawirkuu soo baxaya qaabka loo bedelo. haddaba si aan u bedelno waxaan dhihi doonaa right click anagoo ku dhufan doona personalize, waxaan ka sii dooran doonaa lock screen, kadibna sawirada meesha saaran mid kamid ah ku dhufan doonaa si aynu u bedelno. sidoo kale haddii aad u baahan tahay inaad bedeshid sawirka adigoo soo gashanaya sawir ku jira gudaha computerkaaga, dooran doonaa halka ku qoran tahay browse, kadibna waxaad soo gashan doontaa sawir ku jira computerkaaga. waxa kaloo isla baran doonaa sida loo qariyo taskbar-ka. haddaba si aan u qarino taskbar-ka, waxaan ku dhufan doonaa taskbar-ka dushiisa right click, inta kadib waxaynu ka dooran doonaa taskbar setting. si aan u qarino marka waxaan tigta saari doonaa halka ku qoran tahay automatically hide taskbar in desktop mode, kadib waxa qarsoomay taskbar-keennii. haddaba si aan u soo muujino taskbar-kii aan qarinay, isla bartii aan tigta saarnay waxaan ka qaadi doonaa tigta, kadib waxaan noo soo muuqanaya taskbar-keennii. sidoo kale waxaan samayn karnaa inaynu kaxayno taskbar-ka anagoo geynayna bidix, midig iyo sidoo kale kor iyo hoos. haddaba si aan u kaxayno waxaan ku dhufan doonaa halka ku qoran tahay taskbar location on screen, qaybta bottom, waxa ka dooran doonaa left, kadibna taskbar-keena wuxuu tegi doonaa bidix. sidoo kale waxaan ku dhufan doonaa top, taskbar-ka wuxuu tegi doonaa qaybta kore. sidoo kale waxaan ku dhufan doonaa right, taskbar-keena wuxuu tegi doonaa qaybta midig. sidoo kale si aan bartiisii hore ugu soo celiyo, waxaan ku dhufan doonaa bottom oo taskbar-keena wuxuu imaan doonaa qaybta hoose. waayahay
casharkeennii ahaa barashada Windows 10 qaybtiisa koowaad halkaas baynu ku joojin doonaa wayno ay qaybta xigta insha Allah haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar si ku soo gaaraan muuqaalada in soo gelino channelka haddii aad hore noogu xirnayna muuqaalka like dheh siina share gareysay u gaaraan saaxiibo fara badan oo adiga kale u baahan inay bartaan kombiyuutarka